aad iyo aad baan ciidanka qalabka sida guud ahaan ugu mahadcelinayaa idinkaga mahadcelinayaa waajibaadkii adkaa ee aad soo gudateen. galmudug waxa ay 20kii maalmood ee la soo dhaafay gashay mid ka mid ah imtixaanadii ugu adkaa ee xagga amniga la xiriiray, gaar ahaanna marka ay joogto la dagaalanka kooxaha ka soo horjeeda amniga iyo deganaanshaha Soomaaliya ee shabaab oo doonayay inay qabsadaan deegaano muhiima oo ku yaala duleedka magaalada muhiimka ee Gaalkacyo si ay u kala dhantaalaan una burburiyaan nidaamka iyo horumarka Soomaaliya. waxa ayna yoolkoodu ahaa inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Wisil oo magaalada Gaalkacyo iyo gobolka kale ee Galguduud bartamo u ah, isla markaana istiraatiiji ahaan deegaan xiriirisa in la go'aamiyo qaadida weeraro xoog leh masaafo dhan 100 kiiloomitirna gaaraya, laguna la dagaalamayo kooxo argagixiso ah oo yoolkoodu yahay dhimasho uun. waxa ahayd go'aan adag oo u bareeray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, waayo aragga sida weyn Galmudug muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ugu hayay xilli howlgalka malaayiinta dollar lagu bixiyo ee nabadgelyada Soomaaliya AMISOM loogu yeero uusan wax doora ku yeelan. haddana qoorqoor iyo maamulkiisu waxa ay ka gudbeen imtixaan adag oo ay keeneen natiijo wanaagsan marka loo eego horumarka ay hadda ka sameeyaan masraxa dagaalka. 20 maalmood oo ay dagaal culus wadeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya SNA iyo kuwa Galmudug, ugu dambeyn waxa ay qabsadeen saldhigyadii kooxahan muddada ay ka lahaayeen koonfurta gobolka Mudug kuna dhibaateynayeen shacabka. kaliya waxa ay ahayd halka ay ka difaaci lahaayeen goobahan magaalada muhiimka ah Xaradheere sida ay sheegayaan khubarada ciidan. Galmudug oo dawlad goboleedyada kale ee dalka kala mid ah arrimaha doorashooyinka iyo loolanka waqtigan xasaasiga ah, daruufaha dhaqaale la'aanta iyo agabyada ciidan ee iska kooban, waxa ay hadda dhigtay cashar cusub oo in la iska dhicin karo AMISOM la'aantood kooxaha ka soo horjeeda amniga iyo horumarka dalka. dhacdo kale oo muhiim ah waa wada shaqaynta Mareykanka iyo Galmudug. si cad ayay ciidamada Mareykanku tababaray ee Soomaalida ee ula hawlgaleen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Galmudug. waa hawlgal waqti badan qaatay isla markaana si weyn loo qorsheeyay, iyagoo amarada ka qaadanaya saraakiisha hawlgalka hagaysay. dhinaca kale, duqeymaha diyaaradeed oo ay Washington joojisay bishii January ee sanadkan una amarkeeda laga sugayay uun kaliya John Biden madaxweynaha Mareykanka ayaa ahayd in wax lala yaabay markii bilowgii hawlgalkaba ay diyaaradaha Mareykanku qayb ka noqdeen. Axmed Cabdi Kaariye ayaa u muuqda hadda laacib siyaasadeed ay Mareykanku u arkaan maamulkiisa inuu ka go'an yahay la dagaalanka xagjirka, in lagu amro taliska Africom qayb ka qaadashada hawlgalka ciidamada Galmudugna waa tallaabo muujinaysa Galmudug sii xoogaysanaysa ayay leeyihiin dadka darsaya arrimaha Mareykanka ee Geeska Afrika. Washington waxa ay hoosta ka xariiqatay siyaasad cusub oo ah in lala shaqeeyo maamul kasta oo ay ka go'an tahay xaqiijinta ammaankiisa iyo cid kasta oo diyaar u ah la dagaalanka kuwa ka soo horjeeda nabadgelyada. ilo wargal dhanka amniga ah waxa ay xaqiijiyeen inay shabaab maleeshoodkooda ugu badan 30kii maalmood ee la soo dhaafay isugu keeneen masraxa dagaalka ee koonfurta Mudug, laakiin looga awood batay si buuxdan loogu jabiyay fagaaraha. waa mid ka mid ah dagaalada dhifka iyo naadirka ah ee dhawaanahan lala galay kooxaha ka soo horjeeda amniga Soomaaliya. waxay ciidanku ku iidayaan 20 bari dhufaysyadii khawaarijtu ay ku jireen oo saaka cagta la soo mariyay. wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo horay u soo noqday taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si wanaagsan u garanaya xeeladaha kooxahan ayaa qaybta hogaaminta ee hawlgalka si toos ah uga mid ahaa. Fiqi dadka yaqaana waxa ay ku sifeeyaan in ay ka go'an tahay la dagaalanka xagjirka iyo kuwa ka soo horjeeda amniga. arrinta xiisaha leh ee durba laga eegaya Galmudug iyo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor waa ku dhiirashada sii socoshada hawlgalka deegaanada la qabtay sidii wax looga qaban lahaa iyo adkeynta difaacyada muhiimka ah. Xaradheere waa marin muhiim u ah isu socodka guud ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka. waa meesha ugu badan ee hadda joogaan kooxahan sida la rumaysan yahay kana abaabulaan makriga iyo dhagaraha kala duwan. in Galmudug ay ku dhiirato u dhaqaaqideeda ka hor doorashada aqalka hoosana waxa ay uga dhignaan doontaa Qoorqoor inuu natiijada madaxweynenimada Soomaaliya kadib aan maamulkiisa si fudud loo faragelin doonin. dawlad kasta oo ka dhalata Muqdishona oo kala mid ahaan doona Axmed Madoobe iyo Siciidani sida ay hadba ula tacaamusho. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xidho xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga.
Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay. Ma jeceshahay inaad barato Qur'aanka Kariimka ah iyo culumta shareecada? Ugu kaalay markaska Nuurayn Online oo baro adigoo gurigaaga jooga Qur'aanka, higaada iyo culumta kale Islaamka.